muwaadin shahaado haysto oo meel kasta dowladda imtixaan aan geli karin warbarka qayr beelahan yaa wax soo baray la yiraa jaamacad aan dadka dad fiican aan soo saari karin ee dadka lacag ka guranayso guri u furan dadka inay lacag ka gurtaan ee aan u furnayn qiyam iyo values kale aan u furnayn in la waayo muwaadin wax bartay oo shahaadada uu wataa iyo waxa uu yaqaanahay isu dhigmaan in la helo waxaasoo dhan waa sababta loo aasaasay guddiga tacliinta sare waana waajibka laga rabo inay soo baxdo tacliin sare oo quality leh laakiin tacliinta hoose ee basic ah waa muhiim qofka hadduu tacliin kulli dadka dugsiyada sare ka soo baxa jaamacad ma wada gelayaan dadka jaamacadda gelayahay waa inay noqdaan dad wax dheer dadka kale kii jaamacadda geli waayey qof wax dheer kan ka soo baxayana waa inuu noqdaa qof intii jaamacadda soo gashay wax dheer jaamacadda nambarka ugu badan iyo ammaanta ugu badan iyo ardada ka soo qalin jibisaahay ay shaqo horey ka heli og yihiin oo la raadinayo oo ardayga intaan u badhameen jaamacadda la leeyahay adiga markaad soo qalin jibiso anaad ii shaqaynaysaa waxa guddigaasi inay soo saaraan oo ay aasaas u noqdaan la raba kaas waaye laakiin guddiyadii caadigaa la samey jiray iska yimid hadday ka mid noqdaan waxay noqonayaan ma rajaynayo dadka loo doortay in badan oo ka mid ahaan aqaanaa dad quality-gooduna uu aad u sarreeyo dadnimadooda iyo mas-uuliyaddooda iyo dareenkooduna uu aad u sarreeyo waaye meesha aan ka tallaabo qaadi lahayn oo tacliinta sare ee Soomaaliya ay ka tallaabsan lahayd waaye waxaan rajaynayaa jaamacado badan oo magac oo maanta furan oo aan u weynay sabab aan u xirno aan garan weynay iyo criteria aan ku xirno aan garan weynay guddigaasi inuu naga qaabili doono jaamacadda ama standardkaas soo gaarto ama albaabadeeda hala is saaro jaamacad mar qurtaraan la wadiira fursad hala siiyo hadday 40 40 50 60 soo gaarto muddadaas aad haysataa iska soo dhameystir hal yiraahdo shuruudahaas ku dhiman intaana ku dhiman arday fiican saa u soo saartay waxaana loo baahan yahay soo fuundi guri ma dhisi kara ma qarafka doono haysanin iyo badiil doono haysan haddii badiil ninka uu haysan gurigan dhisaya uu leeyahay wari adigu guri ma dhisi kartid joog in la yiraawa ama badiil soo gada in la yiraawa la imaa badiil marka guddiga tacliinta sare waxaan ka rabnaa waxaas waay oo aan leenahay waxyaabo badan aan ka rabnaa waxyaabo asaasiga waa waxaas jaamacada dalkan ka jiro qaar waa inay xiraan oo ila jaamacad hebel waa lagu kala tagay jaamacadaha qaarkood waa in digniin la siiyaa oo la yiraahdo muddadaas haysataa iska soo dhameystir intaas ku muddadii ka bacdina lagu noqdo loo tago soo dhameystirta haye soo dhameystir waysa xir albaabada soo waliba waxaan soo jeedinaa guddigaasi in oo deliberationskooda howlgaladooda public inay noqdaan dadka soo